sheekh gabadhba wiil sheegatay gabadhaasi inta ay uurka leedahay ma la meherin karaa meherkaasi se ma qabanaya bismillah nurta dhirti waxa u baahan inaan aad u baraarujino kale culimaduna way idinka wacyi galiyeen jazaahumullahu khayran arintan dhaqan xumada ah ee soo kordhay barigii hore way jiraysaa laakiin sii badanaysa oo aynantii intoo nin uu tago oo uu uur ku sameeyo macnaha galma xaaraana oo sidaa ay ku uuraysato kadibna aan dhib weynba loo arkaynin ee loo meherinayo isagiina uu iska soo furaya inantii bannaanka ay ku dhacaysa iyada iyo ilmihii ay dhashayba dhaqan aad u xun dhallinyaradiina sibay ugu dhiiradeenoo qaar baaba odhanaya dee aynu istijaabino haddaad wax dhasho waynu isxambaaran doonaa sidii isxambaarkii yurub ayuu leeyahy dee waynu is eegi doonaaye haddaad uraysato dee mushkilado ma jirta odayaashiiba inoo jooge dee way isku keen asturi uun dabeedna waxay noqotayba waddo labadii waalidka qasbayaana ay soo maraanba ninkaasaa la ii guurinayaa kuu guurin mayno munaasib maaha haddii ay yidhaahdaan waalidku dee warbaabaan u laayun bay leedahay dee inagaga asturun bay odhanayaan arrin kaleba ma jire waaba jur yudh baabay noqotay xumaantii loo marayo marka waxaynu leenahay hablaheennu walaalayaal waa qaali ma rakiis baa mise waa qaali hablaheennu waa qaali dee arrintani ma rakiis bay ka dhigaysaa mise qaaligoodii bay ku haynaysaa rakiis bay ka dhigaysaa bi waaye waxa macruuf ahoo kaloo jira ninku had iyo jeer markaa inanta lagu asturo inta badan ma sii hayaa sida faraha badan 80% way furaan odayaal kaloo la socdun baa leeyahay hebelow yuu xaalina qabanine kontonkeeda ina weydiinayaane iska meheriyo iska furdee maxaa mushkilada jira bala ma jirtaan xaalka kontonkaasi un haynaga hadhee marba waxa khura la isla dhex socdeen waxaan lagu sameynayaana waa caarkeeni iyo ehelkeeni iyo hablaheeni haddaad agu saa usii wadana aday kugu soo noqon karaysaa kugu soo kala firaynaysa marka dhallinyaradaynu ka wacyi gelinaynaa oon leenahay ilaahay ka cabsada oo kii inan xumeeyo walaashaaba la xumaynaya ogow kii inan xumeeyo ooridaada la xumaynaya kii inan xumeeyo inantaada la xumaynaya war wax jira ma tahay tisaa inaad u fikirto weey ina الzinaa daynun fain aqradtahu kaana alwafaau min ahli baytika faclami ninka shaacirkaahi waxa uu leeyahay sinadu waa dayn adaa sii qaadanaya haddii aad dadka ka sinaysato dadkooda ehelkaaga iyo ubadkaagaa laga oofin doonaa ogow waa waxaad sii amaahatay sidaa u fikir lidaalik baa dadka dustuse ee wax wadwada dar kale uun ilaahay ku sallidaayo wixii agtiisun ka kaakacaan marka arrintaa waxaynu leenahay aad ha looga feejignaado odayaasha dhallinyarada dumarka waxaynu dhan uga soo wada jeednahaada guurkana ha la dhiirigeliyo daayar iyagoo carruurtu yaryar ha la isu guuriyo oo ha la isku asturo asturaadee aan lahayn tii uurkiisineed ahayd tudee saxa ah ha la isku asturadidii aynu maayeen inaynu tii sharciynaha moodine kaala aynu samayno kaala aynu badino labada qof ee isguursada ee dhallinyaro ah waa la xoolaynaya ha la idhaaho khalaas nin waliba halkuu usoo shaxaad tegaya arooska isagu wax ka qaadayuunbuu wax keenaya yaradkaynu ka bixinaynaa gabaatiga guriga masruufkana ha raadsadaan taa saasaynu dhiirigelinayna waana dhib caama oo jirta beri dhaweydanu barigaa u baxnay ilaa ceerigaaba ilaa maydh iyo xiisaanu soconnay su-aasha ugu badanana la weydiinaya taas ahayd maxaa aafadan dadkii wada gaadhsiiyey miyiyo magaalay wada gaadhay marka waxaad arkaysaa ceebtaas inayna haysato ay u baahan tahay inaynu ka dulkacno